iyadoo weliba aan adkayn doono ammaanka dadweynaha iyo goobaha ganacsiga bilicda caasimadda. walaalayaal, sida aad og tihiin, nadaafadda iyo bilicda magaalo ay ummadi ku nooshahay waxay ka mid tahay qiimaha dadnimo ee ummaddaas. waa khudbad u jeediyey gudoomiyaha gobolka Banaadir Cumar Maxamuud Maxamed Cumar Filish kadib markii madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya uu u magacaabay gudoomiyahan gobolka Banaadir ahna duqa magaalada Muqdisho. waxaynu eegi doonaa daawade sida uu kaga dhabeeyay gudoomiyaha isbeddelka dhanka horumarka ah ee magaalada caasimadda Muqdisho ku yimaaday intii uu gudoomiyaha uu ka yahay gobolka Banaadir. inagoo ka fiirin doona daawade inta goobood oo gudoomiyaha xariga ka jaray qaar ka tirsan inagoo xarig jarrada uu sameeyay gudoomiyaha ay aad u badan yihiin, laakiin aynu soo koobi doono dhowr xarig jarna aynu ka soo qaadan doono. daawada dhanka kale waxay warbixinteenu ay taaban doontaa ololaha nadaafadeed ee ka socda caasimadda magaalada Muqdisho. waxaa sidoo kaleeto aynu soo qaadan doonaa daawada ololaha wacyigelinta maandooriyaha oo gudoomiyaha gobolka Banaadir Cumar Maxamuud Maxamed Cumar Filish uu ka wado degmooyinka gobolka Banaadir. guud ahaan daawade warbixinteena maanta intaas ayay ku saabsanaan doontaa. barnaamijkan daawade waa barnaamij gaar ah oo aynu isbuuciiba hal mar ku soo qaadan doono TV-ga codka gobolka Banaadir ee Banaadir TV. soo dhawaada gudoomiyaha gobolka Banaadir ahna duqa magaalada Muqdisho mudane Cumar Maxamuud Maxamed Cumar Filish ayaa daafuray mashruuca dhismaha wadada Dr. Kadare, wadadaas oo tagi doonta xeebta Dahab Marina Beach. dhismaha wadadan ayaa ah mid ay baahi weyn u qabaan bulshada caasimadda, iyadoo sidoo kale tan qayb ay ka noqon doonto dalxiiska ay dadweynaha ay ku tagi doonaan xeebaha wadadaasi saaran. gudoomiyaha gobolka Banaadir ahna duqa magaalada Muqdisho Cumar Maxamuud Maxamed Cumar Filish oo ka hadlayay furitaanka mashruucan waxa uu sheegay in maamulkiisa ay ka go'an tahay sidii ay bulshada u heli lahaayeen adeeg iyo waxtara. waxaa maanta farxad noo ah inaan dhagax dhigayno wadada aadda dhinaca xeebta waqooyi ee ka bilaabmata meesha ay ku dhammaato wadada Kadare. aana rajaynayno inay gaarto Marina Beach ama mataqaanaa Dahab Marina meesha la yiraahdo oo ah state. dhanka kaleeto gudoomiyaha gobolka Banaadir ahna duqa magaalada Muqdisho mudane Cumar Maxamuud Maxamed Cumar Filish ayaa kormeeray dib u dhiska lagu sameynayo wadada Fagax oo ka mid ah wadooyinkii ku burburay dagaaladii sokeeye ee dalka ka dhacay. 30 sano kadib maamulka gobolka Banaadir ayaa ku guuleystay dib u hirgelinta xarunta gaadiidka iyo dhulbixinta ee dowladda hoose xamar oo ku taala degmada Warta Nabadda, gaar ahaan agagaarka tuulada ciyaaraha ee Stadium Muqdisho. xaruntaas oo dib u dhis sameeyay waxaana si rasmi ah u daafuray gudoomiyaha gobolka Banaadir. dhammaan gaadiidleyda kala duwan ee dowladda hoose xamar ayaa heegan la geliyay xarunta gaadiidka iyo dhulbixinta, halkaasi oo si joogto ah ay uga soo shaqo tagi doonaan. waana qayb ka mid ah ballanqaadyadii gudoomiye Cumar Filish oo la xiriirta in shacabka caasimadda loo dhammayn doono adeegyada ay markaasi uga baahan yihiin maamulkan gobolka Banaadir. gudoomiyaha ayaa kormeeray dhanka kale gaadiidka kala duwan ee goobta lagu soo dadaal dheer oo dowladda hoose ay samaysay iyo maamulka gobolka Banaadir kadib inuu noo suura galay inaan maanta si rasmi ah u xarig jarno xaruntii gaadiidka dowladda hoose ee degmada Warta Nabadda. xaruntan waxay socotay muddo dhowr bilood ah dhismaheedu. maantay si rasmi ah waxaa loogu soo wareejiyey shaqadii ay u qaban jirtay maamulka gobolka Banaadir oo ah meel gaadiidka gobolka Banaadir xarun u ah. runtii xarumo hadda ay si tabarariya ama ku meel gaar ugu shaqeeyaan ayaa jiray, ha ahaato xarunta loo yaqaano Tika ama ahaato xarunta kale ee loo yaqaano Aquadoto loo yaqaano ee Bondere. xarumahaas ayaa si ku meel gaar ah uga sii howlgeli jireen. gaadiidka dowladda hoose wuxuu isugu jiraa dhowr nooc sidaad ka warqabtiin. hadday ahaan lahaayeen kuwa dabdamiska oo magaalada ka howlgala, haddii ay ahaan lahaayeen kuwa ambulansooyinka oo gurmadka degdega dadka bukaanada iyo loogu talagalay,
haddii aan ahaan lahaayeen basaska bulshada iyo ciyaartooyda iyo waxyaabahaas lagu qaado, haddii ay ahaan lahaayeen baabuurta iskarogayaasha ah, haddii ahaan lahaayeen kuwa mataqaanaa dhulalka qoda ama waddooyinka kuwa sameeya, baalooyinka iyo katarabiilada, layrada, dhammaan qaybahaas ayuu ka kooban yahay gaadiidka dowladda hoose. dhanka kaleeto gudoomiyaha gobolka banaadir ahna duqa magaalada muqdisho mudane cumar maxamuud maxamed cumar filish ayaa kormeeray dhismaha wadada Jazeera oo qayb ka mid ah uu dib dayactir markaasi uu ku sameeyay maamulka gobolka banaadir oo kaashanaya ganacsatada Soomaaliyeed. dhismaha wadadan ayaa ah mid ay baahi weyn u qabeen bulshada isticmaasha wadadaasi maadaama markii horeeta ay ka muuqatay burbur xoogan, hase ahaatee maamulka gobolka banaadir oo ka jawaabaya codsiga dadweynaha ayaa wadada Jazeera dib u dhis markaasi ku sameeyay, iyadoo mahadcelintaasna uu leeyahay gudoomiyaha gobolka banaadir ahna duqa magaalada muqdisho cumar maxamuud maxamed cumar filish. dhanka kale haddaynu fiirino gudoomiyaha gobolka banaadir ahna duqa magaalada muqdisho mudane cumar maxamuud maxamed cumar filish ayaa xariga ka jaray dhismaha wadada xiriirisa degmooyinka Waaberi, Xamar Jajab, Xamar Weyne oo maamulka gobolka banaadir dib u dhis markaasi uu ku sameeyay. wadadan oo xariga uu ka jaray duqa magaalada muqdisho ayaa sidoo kale waxay isku xirtaa isgoyska Shabeelle ilaa iyo isbitaalka Martini, waxayna soo hormartaa xarunta beerta nabadda iyo Biyaasa Leebaro. ma hadduu laami dhisaa lagu leeyahay oo maxaa ku wata bulshadiina waxay leedahay maxaana loo qabtay haddaan laamiga loo dhisay oo aan nadaafaddii laga shaqaynayn oo aan bilicda laga shaqaynayn. halkan waxaad markhaati ka tihiin meel qashinka lagu soo shubay ahayd, meel kuwa daroogaysan looga go'ay oo ay isbaaro u dhigtaan bulshada iyo ciyaalka iskuulka aada ayay ahayd. sidaas oo maha maantay meel xafidan oo nadiif ah oo aanan anigu lahayn adiguna lahayn aan wada leenahan ka dhignin. waxaa loogu talagalay waddadan quruxsan oo la dhisay inaysan ciriiri noqon oo baabuurta waaweyn oo xamuulka wadda ayan baabuurta yaryarka iyo bajaajka hooyooyinka wada iyo adeegga wada iyo askar ardayda ciyaal iskuulkaa wada inayan waddada ku ciriirin oo halkan looga xareeyay. sidaasaa loogu talagalay. waxaa ka horraysay oo aan filaayo qaar badan oo idinka miduhu inuu goobjoog u ahaa shilal fara badan oo baabuur waaweyn oo konteynarro wadaahu ay ku dul habsanaayeen bajaaj hooyooyin iyo carruur ay saaran yihiin. haddii darxumadaas aan aragnay oo hooyooyinkii iyo carruurtii maalin walba dhiiggoodu laamiga daadsan yahay, mas-uuliyadda aan xambaarsannahay ama nasaarana waxay noo sheegtay inaan arrintaas tallaab ka qaadno. gudoomiyaha gobolka banaadir ahna duqa magaalada muqdisho mudane cumar maxamuud maxamed cumar filish ayaa kormeeray wadada Generaal Daawud iyo taalada daljirka Dahsoon ee degmada Boondheere ee ay markaasi dowladda hoose Xamar ay ka hirgelisay leerarka cadceeda ku shaqeeya. mashruucan lagu hirgelinayo leerarka cadceeda ku shaqeeya ayaa ah mid ay markaasi lagu muujinayo bilicda wadooyinkaasi. sidoo kale hirgelinta leerarkan ayaa qayb ka ah xoojinta sugidda nabadgelyada. duqa magaalada muqdisho mudane cumar maxamuud maxamed cumar filish ayaa kula dardaarmay madaxda qaybta howlaha guud ee dowladda hoose Xamar inay dardargeliyaan ballaarinta mashaariicda lagu hirgelinayo markaasi leerarka cadceeda ku shaqeeya.
gudoomiyaha gobolka banaadir ahna duqa magaalada muqdisho mudane cumar maxamuud maxamed cumar finish iyo wasiirka wasaaradda gaadiidka iyo duulista hawada ee xukuumadda federaalka ee Soomaaliya mudane Durraan Axmed Faarax ayaa si wadajir u dhagax dhigay dhismaha barxadda baakinka airportka Aadan Cadde kaas oo loogu talagalay in xal loogu helo samxadda ballaaran ee ka jirta gudaha garoonka Aadan Cadde gudoomiyaha ayaa sheegay gobolka banaadir in barxadani baakinka ay tahay markaas mid xarig jarkeeda muhiim u ah garoonka Aadan Cadde maamulka degmada Xamar Jajab oo kaashanaya qaar kamid ah shacabka ku dhaqan degmada iyo ardayda ka kala timid iskoolada ku yaala degmadaasi ayaa olole nadaafadeed ka sameeyay xaafado kamid ah degmadaasi halkan waa wadada Shabeelle ee degmada Xamarweyne halkan waxaa ka socota olole nadaafadeed oo aad u ballaaran ololahan maamulka degmada uu markaasi ula gol leeyahay nadiifinta wadooyinka degmada ayaa waxaa ka qayb qaatay ardayda iskoolka macallin jaamac ee degmada Xamarweyne iyo agaasimaha waaxda nadaafadda iyo bilicda soo celinta ee maamulka gobolka Banaadir magaalada Muqdisho maalin kale oo kamid ah hore waxa uu aragteen degmooyin badan oo ka qayb qaateen ardayda iskuulada magaalada Muqdisho inay ku dhiiradaan in magaaladooda ay nadaafadooda bilicdooda kor u qaadaan way noo farxad way noo guul inay nagula soo biiraan arday yar oo ah kuwa biri mustaqbalka wadankani hogaamintooda iyo maamulkooda ayaga laha waana idinku dhiirigelinayaa runtii inaad garateen inaad u soo baxdaan maanta oo waqti ka madaxiiseedihiinii aad siisaan sidii magaalada bilicdeeda loo soo celi lahaa annagu waxaan diyaar u nahay cid kasta oo gobolka Banaadir ku dhaqan maxaa la dhahaa nagala shaqeynayso horumarka iyo bilicda caasimadda Muqdisho inaan soo dhaweyno runtii dadka Soomaaliyeed marka hore waxaad mooday inay garanaynin muhiimadda ay leedahay nadaafadda balse hadda dadku waxay u soo bannaan bixeen inay ayagu qayb ka noqdaan horumarka iyo quruxda caasimadooda ka jirto waana inoo guul in dhalinyaradeenna ay garanayaan muhiimadda ay leedahay nadaafadda runtii waxaad ogaataan dawladdu waa dad yar oo kooban laakiin bulsho waa dad wada firaarsan awoodo kala duwanna leh waxaynu fiirin doonaa haatan degmada Kaaraan ee gobolka Banaadir ayay sidoo kale waxa ka socday olole nadaafadeed ololaha nadaafadeed ee degmada Kaaraan laga sameeyay ayaa si gaar ah looga sameeyay laanta Goday iyo waaxda Faanoole ee degmada Kaaraan ololahan oo ahaa markaas mid aad u baaxad weyn ayaa waxa goobta ka hadlay gudoomiyaha degmadaasi Kaaraan Abshir Maxamed Abshir Kaaraan oo hogaaminaya ololaha nadaafadeed ee degmadaasi ka socda waxa uu u mahadceliyay cid kasta oo ka qayb qaadatay ololaha nadaafadeed isagoona xusay in muhiimad gaar ah ay siin doonaan dib u soo celinta bilicda degmada Kaaraan waxa uu shacabka ku dhaqan degmada Kaaraan ugu baaqay gudoomiyaha degmada Kaaraan inay si isku mid ah uga qayb qaataan ololaha nadaafadeed ee dib loogu soo celinayo bilicda degmada Kaaraan iskuulada degmada Kaaraan ku yaalan oo u mahadcelinaya oo saaka gacanta naga siiyay inay garab istaagaan dhalintoodii barbaarka ahayd oo hadda soo bixaysana la tusiyo inuu beledkoodii yahay beledkan aysan beled kale lahayn mar walba mar labaad mar saddexaad waxaan uga mahadcelinayaa macallimiintii soo abaabushay iyo ururweynihii haweenka degmada Kaaraan oo maalin walba u taagnaayo har iyo habeen nadaafadda u taagnaayo waxaan leeyahay maadaama idinka gaarto dalku waa dalkiinni deegaanku waa deegaankiinni cid aad ku halleeysiin ma jirto cid walbana waxaan ka codsanaynaa ayagoo niyad sami iyo kalsoonida ay qabaan aan uga mahadcelinayna inay deegaankooda nadiifsadaan deegaankooda dib u dhistaan amnigooda sugtaan mar walbana waxaan leeyahay waxaynu fiirin doonaa haddana warbixinteena dhanka maanduuriyaha oo aynu hal iyo laba iyadana ka soo qaadan doono oo gudoomiyaha gobolka Banaadir oo hormuudku u yahay wacyigelinta ka socota degmooyinka gobolka Banaadir gudoomiyaha gobolka Banaadir ahna duqa magaalada Muqdisho mudane Cumar Maxamuud Maxamed Cumar Finish
dhanka wacyigelinta ayayna weli ku guda jirnaa. Gudoomiyaha gobolka Banaadir ahna duqa magaalada Muqdisho mudane Cumar Maxamuud Maxamed Cumar Filish ayaa degmada Cabdicasiis uga qayb galay ololaha wacyigelinta iyo ka hortagga isticmaalka maandooriyaha oo si guud uga socda caasimadda. Munaasabadan ayaa waxaa goobjoog ka ahaa gudoomiyaasha degmooyinka gobolka Banaadir, agaasimayaal ka tirsan dowladda hoose, xamar, saraakiil amni iyo qaybaha bulshada rayidka. Gudoomiye Cumar Filish oo la dardaarmayay bulshada caasimadda iyo maamulada degmooyinka ayaa waxa uu sheegay in maandooriyuhu halis ku yahay jiritaanka ummadda xasiloonida magaalada Muqdisho. maandooriyuhu uu ku hayo daayirta Soomaaliyeed. maandooriyuhu sida aan ognahay waxyaabaha ugu badan ee amni darrada sababa ayuu kow ka yahay. marka waxaa nolosha ugu muhiimsanina waa nabad. marka in maandooriyihii uu sii kordhayo oo dhallinyaradii ay ku sii faafayaan isticmaalka maandooriyaha, amnina aan rabno, waa iskeeni weyse. marka si amni loo helo oo bulsho caafimaad qabta loo helo oo dhallinyaro mustaqbal leh loo helo, ayaan u aragnay inay lagama maarmaan tahay inaan u tabliiqino bulshada gobolka Banaadir, degmooyinkooda jooga, degmo kasta bulshadeeda aan tagno, sidaanoo kalena aan ugu sheegno khatarta ay daroogada isticmaalkeedu ay ku hayso bulshada. waxaan filayaa inaad fiirsateen goobo badan oo ka mid ah gobolka Banaadir oo la isugu keenay noocyada kala duwan ee maandooriyaha, hadday ahaan lahayd xashiishka, khamriga dhoofiska lagu keeno, midka macmalka oo calaqa loo yaqaano, kaabuugta, kan la isku duraayo, yacni nooc kasta oo ka mid ah maandooriyaha. fagaarayaashaas ayaa la isugu keenayey, lagu gubayey. waxa igu yaabka badnaa waxay ahayd guri ay ku taalo warshad yacni lagu sameeyo calaqa, ayaa waxa yaala in ka badan 30 fuusto oo qaarkood dhulka ay ku jiraan. fuustooyinkaas waxaa ka buuxay calaq. waxaa kaloo yaalla digsiyo waaweyn oo calaqa lagu kariyo oo tubooyin ay ka soo baxsan yihiin, ku shubaya caagag mataqaana filtaro leh. marka fuustooyinkii marka aan qaadnay oo yacni waxaan lagu adkaaday kuwa dhulka ku jiray, marka inaan booyad keenno oo booyaddii looga dhuuqo ilaa dhulka waa laga soo saari waayey, waa fuustooyin buuxa waay oo lagu shamiiteeyey meesha. inaan markaa yacni booyada uga dhuuqno oo markaas lasoo daadiyo, sidaas loo soo qubo. waa hagaag daawadayaal, xarig jarro kaleeto iyo horumarro kaleeto oo caasimadda uu markaasi uu ka sameeyey gudoomiyaha gobolka Banaadir ahna duqa magaalada Muqdisho, inaguna halkaas ku soo koobi karin xarig jarrada iyo ololaha nadaafadeed ee degmooyinka gobolka Banaadir ka socda iyo dhanka kaleeto maandooriyaha gudoomiyaha gobolka Banaadir oo ka wada degmooyinka gobolka Banaadir ayaa waxay noo noqon doonaan taxane inagoo soo gudbin doona qaybtan. intaas ayaan markaasi ku soo gabagabayn doonaa. barnaamijka waxaa halkan idinkaga tebinayay anigoo Cabdiqaadir Maxamed Macalin kalgacal. intaa ku kulmi doono barnaamij noocan oo kale ah waxaan idinkaga tegaynaa sidaas iyo nabadgelyo.